naarta ololeysa laa yaslaahaa ma geli doono ilaa mooyaane al-ashqaa mid ayaan daran unbaa geli doona. 7 sano ayuu xabsi ku jiray wuxuu la kulmay jirdil aad u xoogan waxayna had iyo jeer ka duubi jireen muuqaalo argagax leh iyadoona ugu dambeyn la soo bandhigay muuqaaladan. haddaba shiiqan hadda waa mid kamid ah shiiqyada ugu caansan dhammaan geyiga Soomaalida waxaa lagu magacaabaa Maxamed Ismaaciil. haddaba daawadayaal waxaan u go'aansanay in qisada shiiqan oo rasmi ah aanu idin la wadaagno maadaama dad badan ay arkeen muuqaaladan hase yeeshee aysan ogeyn sababta ka dambaysa ee shiiqan sidan loogu galayay iyo shakhsiyadda dhabta ee maanta shiiqan. haddaba daawadayaal inta aanan kula wadaagin fadlan marka hore muuqaalka leegaray si uu u faafo una gaaro bulshaweynta Soomaaliyeed ayna uga dhiidhiyaan arrimaha noocan oo kala ah. sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo channelka subscribe saaranaya gambaleelkana u bilowga sanadkii 2004 guud ahaan geeska Afrika waxaa ka jirta cabsi la xiriirta argagaxiso waxaana bilaabatay beegsiga culimada Soomaaliyeed iyada oo loo gelinayo shaati argagaxiso si loo gumaado. haddaba arrintan oo ay soo maleegeen reer galbeedku ayaa culimo badan oo Soomaaliyeed lagu beegsaday. halkani waa Somaliland waxaana ka dhacaya fal argagax leh kaas oo lagu beegsanaya Sheekh Maxamed Ismaaciil waxa lagu soo xiray mid kamid ah xabsiyada Hargeysa si su'aalo loo weydiiyo. hase yeeshee arrintu su'aalo oo kaliya kuma koobno wuxuuna la kulmayaa caqab bini aadam midkii ugu xumayd koronto ay ku dhajinayaan madaxa iyo gacmaha ay kaga istaagayaan way ciqaabayaan waxayna doonayaan inay ka soo saaraan hadallo iyagu ay doonayaan kaas oo been abuur ah si maxkamad been ah loo saaro kadibna lagu xukumo xukun adag. haddaba bal marka hore aynu isla daawano muuqaalkan argagax leh ee baraha bulshada ku baahay kaas oo muujinaya sidii loo galay shiiqa. هذا ما عنده وزق تروال وصحيح أنا محمد سكوينس ما أنا محمد جو ما رد ذلك صحيح حبيبنا أنا إيش هذا حبيبنا سير هذا طيب محمد علي جدي لورا هذا علي جدي كله ولا تبع علي جدي له يصرف كان عامل سالم هذا كأسوة بحسابات عامل حسابي أنا بركات بكذا وقت ما سوق حتى حسوا قوي لا تقول بركات حقوق أنا حسابي بركات صوتي ما أمر يكون عامة سنة كي العقد المسيسة أنا ما يعرف يمكن يتحاد كورة شو اسمه هذا شو اسمه العنقري هنا عاد وقت كحول جانا وحنو بيعتقدوا أبو كلمة هي يرجع حسده يرجع حسده كيشت سمع يعني ما جانا إنه هذا إيش كشخ يستانه إنه وقت كانوا قاعدين تقول شركة زمان تقول هاي سلسلة كان زمان تلاقي شيء جيسات هالقارتين أنا وايد أقنع وعبا يسكبنت أصلا أنت أول ما هاي يمكن ده أصلا شفته ما مفاتيح يمكن تعمل صاحب أنت ثاني صاحب ده وحصل سلسلة يمكن ده هقصد ما كل محل قصده واحد كورنا هذه واحد أنت كلمة هاد وحشة جدا أنت هذه هو واحد من هذا كنت أنا بدون نفع ذا واحد يجري بس كان يدين سلاح بطل قال وحنا نحن ويعني ليس يعني مش هذا جو حد عدينا يسوي كان إنه رحمة وهي محاضرة دي أذكر قسم مساجد هذه الشيخ مصطفى محاكم كلفين مريكا بحكي شكل ثم وحي لا يكشف وحنا ما كشف أنت لا يكشف وما كشف سيدنا صاحبي سومالي الآن إثيوبيا يعني ما سوينا حق درنا وحق ولا فات سنة إثيوبيا أنا وقال إلهي وانا سبحانه وتعالى قال بشيء قالوا بمشي تفسير كلام حد إثيوبيا كمر والبوس عام حتى ولاد عالية إلهي ما صار على المسجد وأحمر وقاتل الذين يرونكم من الكفار ولا يجد فيكم غلظة والشاي حنقول شيء دين تعرف هذا يسبب حديث أسوأتها أنا دينت إلهي كل حماية ماشي مرة هو حقول لي لا خلاص وضح لك ويا لا دور ويا هذا الموضوع خلكم ماشي يا لا هم هيدانين لا حدا كسار أنا هدية كيمي كنور هذا يكون تمام هذا يكون تمام هذا سارس لكن أنا محمد ولا حتى كبعدي وإحنا قلنا يا ورئيسوا هذين بيسكوا بدلنا هذين بيسكوا بدلنا
ugu dambeyn maanta shiiqan waa mid ka mid ah shiiqyada ugu caansan magaalada Hargeysa iyo guud ahaan geyiga Soomaalida waana shiiq caalima oo ay dad badani kitaabada ka akhristaan isagoona ah shiiq akhriya tafsiirka Quraanka Kariimka ah bal aynu isla daawano kilib kamid ah cashiradiisa annaga iskale baa Ilaahay yiri lal aakhirah tadambe oo aakhira ah iyo wal uula iyo tan horeysa labadaba ana iskale maxaad u dayici aakhiro adduunyadana aad isu siin labada daaroodba aniga leh saasuu Ilaahay leeyahay wa inna lana annaga iskale lal aakhirah tadambana annaga iskale wal uula tan horeysa aad adigu isa siisay aniga leh inaad ku kaaftoomaysa aad moodayna adigu meelheeda amaanay kugu tahay fa andartukum dhagihiina fura waan idin digayaa dhagihiina fura baa Ilaahay leeyahay fa andartukum insaan yahow waan idin digayaa naar baan idinka digayaa naarta oo talada ololaysa naarta ololaysa laa yaslaaha ma geli doono ilaa mooyaane al ashqa mid ayaan daran baa geli doona nin nasiib daran haddaba daawadayaal waxaynu leenahay dhibkii aad soo martay runtii waxaad la kulantay ciqaab bini'aadanimo shiiqan waxaa la xiray sanadkii 2004 waxaana xabsiga laga soo daayay sanadkii 2010 intaa waxa uu ku jiray xabsiga waxa uu la kulmayay ciqaabkan iyo jirdilkan haddaba waxaan leenahay dadku waa inay ka dhiidhiyaan in culimadooda sidan oo kale loo galo maadaama wax been abuur ah lagu xiranayo kadibna sidan loo jirdilayo halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii aan ka diyaariyay inta aan muuqaalkiisa kala kulmayno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabad